xafladan sida weyn loo soo abaabulay waxa soo qaban qaabiyay ardayda wax ka barta kulliyadda caafimaadka gaar ahaan qaybta ilkaha oo sanadan ka qalin jabinaya jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ku taala waxayna ardaydan xafladan ugu talagaleen sidii ay ugu mahad celin lahaayeen maamulka iyo hormuudiyada caafimaadka ee jaamacadda Camuud sidii hagar la'aanta ahayd oo ay ardaydan ugu hagar baxeen waqtigii ay wax ku baranayeen jaamacadda Camuud waxaana xafladan ka soo qayb galay qaar kamid ah salaadiinta dhaqanka ee guud ahaan Soomaaliland maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Camuud madaxda shirkadaha isgaarsiinta ee gobolkan iyo qaar kamid ah ardayda wax ka barata kulliyadaha kala duwan oo jaamacadda Camuud ka kooban tahay waxaana ugu horeen madashan ka hadlay Cabdiraxmaan Aadan Faarax oo ku hadlay magaca ardayda sanadan ka qalin jabinaysa kulliyadda caafimaadka gaar ahaan qaybta ilkaha wuxuuna ka waramay marxaladihii kala duwan oo waxbarashadooda soo martay isagoo u mahad celiyay madaxda iyo hormuudiyada qaybaha caafimaadka ee jaamacadda Camuud waxa aan arkisin khibrad badan ay leeyihiin oo runtii iyagoo ah dhantiisii ugu horreeyay qalinjabin doona insha Allah tacaala laakiin aan weli qalinjabin waanu dareenkayga insha Allah tacaala ugu soo gudbinayna halkan waxaa la bisay khibrad dadaalkaasi qayb weyn wax ka qaatay jaamacadda Camuud gaar ahaana fakultiga دكتورنا أمبارتين في كلية فتكتير وأنت قيم وين كقاطي عبد الرشيد عمر شيخ إبراهيم عامر hormuudiyada kulliyadaha caafimaadka iyo qaybta ilkaha ee jaamacadda Camuud Dr. Saciid Axmed Walhad iyo Dr. Cabdirashiid Cumar Sheekh Ibraahim oo iyaguna madashan ka hadlay ayaa waxay ugu mahad celiyeen ardaydan xafladda soo qaban qaadisay kuwaasoo ku baraarujiyay in waxyaabihi ay ka barteen jaamacadda Camuud ay uga shaqeeyaan ummadda Soomaalida in baan ka faa'iideysan anu markaan wax barayay ardadan ama aan ku fikirayay kulliyadda waxaan ku fikirayay caaw inaan qadortanahay waayo qolban homarkan dhaqada ma sida wasal ay qasab waxa ay caawiyo taawsade waxa ay markay ardayda mudasho oo wada furanaynaay markaas aan hadlayaa waxaan namada imtixaanka u diyaargarowga ilaahay ugu guuliyay imtixaanka wax fiican baad barteen oo hadda halka ka muuqatay dadka dhibaatada qabtay in qoski jirin caawa qosaya wanaagga samayseen ilaahay inuu imtixaanka ugu kaalmeeyo sidoo kale qaar kamid ah salaadiinta dhaqanka ee Soomaaliland oo ay kamid ahaayeen qaar ka yimid bariga Soomaaliland ayaa waxay ugu mahad celiyeen maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Camuud gaar ahaan kulliyadda caafimaadka qaybta ilkaha sida hagar la'aanta ah oo ugu hagar baxeen ardayda sanadan ka qalin jabinaysa qaybtaasi si kastaba ha ahaatee ardaydan waxay noqonaysaa kuwii ugu horeeyay oo ka qalin jabiya kulliyadda caafimaadka gaar ahaan qaybta ilkaha ee jaamacadda Camuud kuwaasoo noqonaya kuwo wax weyn ka bedeli doona baahi fara badan oo dhanka xanuunada ilkaha oo sanadihii la soo dhaafay ay haysatay bulshada ku dhaqan mandiqadan geeska Afrika ee afka Soomaaliga looga hadlo Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama